waata daawadayaal wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysaane markaan qodobadeena kale ayaynu sii eegaynaa. haweeney u dhalatay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Mafis Erdogan ayaa maalmihii la soo dhaafay qabsatay warbaahinta iyo baraha bulshada ee dalkaas kadib markii saygeeda ay ka dalbatay in uu u soo celiyo kili ay hadda ka hor ugu deeqday isagoo xanuunsan. haweeneydan iyo saygeeda oo lagu magacaabo Ahmed Erdogan ayaa aqal galay sanadkii 2006 waxaa dhowr sano kadib xanuunsaday saygeeda oo laga qabtay kiliyaha. sanadkii 2009 ayaa isbitaal ku yaala dalka Turkiga waxaa la seexiyay Ahmed Erdogan waxaana dhaqaatiirta ay ka deeriyeen xaaladiisa caafimaad waxayna ku taliyeen in uu u baahan yahay qof kale oo kili u bixiya si noloshiisa loo badbaadiyo. waxaa markiiba u soo istaagtay xaaskiisa oo ugu deeqday mid ka mid ah kiliyaheeda. haweeneydan ayaa badbaadisay saygeeda waxaana taasi ay keentay in uu caafimaado Ahmed. hase yeeshee horaantii bishii Abriil ee sanadka 2019 Ahmed Erdogan waxay xaaskiisa sheegtay in uu guur qarsoodi ah la galay gabar ay ehel yihiin oo uu ka tagay iyada oo u haysa wiil 11 sano jir ah. balse Mafis Erdogan ayaa ka carootay sida ninkeeda uu ula dhaqmay waxayna ka soo muuqatay barnaamij ka baxa telefishinka Haber ee dalka Turkiga iyadoona dalbatay in ninkeeda uu u soo celiyo kilidii ay ugu deeqday dhowr sano ka hor. waxaan siiyay kilideyda sababtuna waxay ahayd in aan nolol wadaagno ayay tiri Mafis Erdogan oo la hadlaysay telefishinka Haber. waxay inta raacisay in ninkeeda uu khiyaanay taasina aysan ahayn wax ay filanaysay. haweeneydan ayaa sidoo kale sheegtay in qoyskiisa aanay siinin kilida markii uu u baahnaa balse iyada ay nafteeda u hurtay. hase yeeshee arrinta dad badan ka yaabisay ayaa ah in saygeeda Ahmed Erdogan uu xaqiijiyay in wax walba oo dhexmaray isaga iyo xaaskiisa wuxuuna yiri maba ahaynba in ay isiiso kilideeda xilligaas. Ahmed Erdogan ayaa sheegay in xaaskiisa guri uu lahaa ay kaga bedelatay kilida ay siisay sidaas darteedna aysan ahayn wanaag ay u fashay. labada dhinac ayaa midka kale ka eed sheegtay. labadooda oo ka soo muuqday barnaamijka ka baxa telefishinka Haber oo looga hadlo dhibaatooyinka qoysaska ayaa haweeneydan waxay sheegtay in dhib badan ay u soo martay balse sidaas aysan ka filanaynin saygeeda. canugayga wuxuu galay qalliin aniga ayaa raadsaday lacagta qalliinka oo cidna ma weydiin qof i taageerayna ma lahan. dhib badan ayaa u soo maray saygayga ayay raacisay hadalkeeda. Mafis Erdogan oo ka sheekeynaysa wixii ay kala kulantay nolosha ayaa sheegtay in wixii ka dambeeyay markii ay kilida u bixisay Ahmed ay xaalad caafimaad la soo darisay. haweeneydan oo ilmeynaysay iyadoo si toos ah looga wareysanayo telefishinka Haber ayaa sheegtay in ay ka dhaadhici weyday waxa uu ku sameeyay saygeeda. waxaan la daaladhacayaa sidii aan hal kili ugu noolaan lahaa iyo korinta canugiisa. waxaan siiyay noloshayda haddana waxaan rabaa in uu kilideeda ii soo celiyo ayay raacisay hadalkeeda. sharciga dalka Turkiga ayaa dhigaya in hadii qofka uu ku deeqo xubin ka mid ah jirkiisa kadib marka la dhameeyo qalliinka uusan mar kale dib u sheegan karin maadaama qalliinka ka hor la kala saxiixdo heshiiska bixinta. haweeneydan ayaa haatan waxa ku adkaan doonta inay dib u hesho kilideeda maadaama sharciga aysan waafaqsanayn. waxaas hadalkeeda laga dheehan karaa sida ay uga xun tahay qaabka ninkeeda ay sheegtay in uu ula dhaqmay. waa tahay daawadayaal wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysa.